Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka waxaa la aasaasay Luulyo 2015 wuxuu ku qotamaa dastuurka ku-meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobkiisa 111 sida uu qabo dastuurku. Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood oo muddada shaqadoodu ay tahay 6 sano. Guddiga wuxuu leeyahay gudoomiye iyo ku-xigeen iyagu ay iska dhex doorteen. Sidoo kale guddiga wuxuu leeyahay xogayaha guud oo u xilsaaran hirgelinta go'aamada guddiga iyo maamulidda iyo kormeeridda howlwadeennada guddiga. Sida ku cad dastuurka Jamhuuriyadda iyo sharciga lagu dhisay guddiga, waxaa guddiga saaran waajibaad ballaaran oo kala ah: qabashada doorashooyinka madaxweynaha, qabashada doorashooyinka baarlamaanka federaalka, diiwaangelinta codbixiyaha, diiwaangelinta musharaxiinta doorashooyinka, xadaynta deegaanada doorashooyinka iyo xarumaha codbixinta, diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda, xalinta khilaafaadka la xiriira doorashooyinka, dabagalka iyo qiimeynta doorashooyinka, xeer u dejinta lacagaha ay qarash gareeyaan musharaxiinta iyo xisbiyada, la socodka cabashooyinka la xiriira xeerka magacaabidda musharaxiinta xisbiyada, wacyigelinta codbixiyaha iyo qabanqaabinta iyo hirgelinta aftida. Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranku wuxuu leeyahay himilo iyo aragti fog oo uu dadaal ugu jiro in uu gaaro. Si himilada guddiga loo xaqiijiyo, wuxuu guddiga qabanayaa doorashooyin iyo afti dadweyne kuwaas oo ilaalinaya korna u qaadaya diidilada dimuqraadiyadeed ee dadka Soomaaliyeed. Wuxuu guddigu samaystay qiyam aasaas u ah dhammaan howlaha guddiga oo ku saleysan hufnaan, daahfurnaan, wadajir, dhexdhexaadnimo iyo ixtiraamka sarreynta sharciga. Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka wuxuu leeyahay 4 waaxood oo kala ah: waaxda wacyigelinta iyo waxbaridda codbixiyaha, waaxda maamulka iyo maaliyadda, waaxda howlgalka doorashooyinka iyo waaxda sharciyada. Waxaa kale oo guddigu uu leeyahay xafiiska diiwaangelinta xisbiyada. Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranku waxay ka shaqeeyaan sar u qaadidda kalsoonida uu muwaadinka Soomaaliyeed ku qabo in dalka laga hirgeliyo doorashooyin xor ah oo ku dhisan sinaan iyo dimuqraadiyad. Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka mayba la aasaasay Luulyo 2015 mayba hukuntay dastuurka ku-meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobshay 111 sida qaba dastuurka. Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka oo ka kooban 9 xubnood muddada shaqadiisa mayba ataa 6 sano. Guddiga mayba leeyahay gudoomiye iyo ku-xigeen oo iyo haska dhex doordeen. May kale guddiga leeyahay xogayaha guud oo aan hel saaran hirgelinta go'aamada guddiga iyo maamulidda iyo kormeerada howlwadeennada guddiga. Sida ka dastuurka Jamhuuriyadda iyo sharciga laga dhisay guddiga, baa guddiga saaran waajibaad ballaaran oo shal ah: qabashada doorashooyinka madaxweynaha, qabashada doorashooyinka baarlamaanka federaalka, diiwaangelinta edbiyowga, diiwaangelinta musharaxiinta doorashooyinka, xadaynta deegaanada doorashooyinka iyo xarumo edbiyowga, diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda, xalinta khilaafaadka la xiriira doorashooyinka, dabagalka iyo qiimeynta doorashooyinka, xeer dejinta lacagaha qarash gareeyaan musharaxiinta iyo xisbiyada, la socodka owaadka la xiriira, xeerka magacaabidda musharaxiinta xisbiyada, wacyigelinta edbiyowga iyo qabanqaabinta iyo hirgelinta aftida. Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka waliba leeyahay himilo iyo aragti dheer si himilada guddiga la xaqiijiyo. Waliba guddigu qabaday doorashooyin iyo afti dadweyne xaanas oo ilaaliya kornaan qaada hiddiidilada dimuqraadiyadda dalka Soomaaliyeed. Waliba guddigu suubsaday qiyam aasaas ah dhammaan howlo guddiga oo ka saleysan hufnaan, daahfurnaan, isla jirow, dhexdhexaadnimo iyo ixtiraamka sareynta sharciga. Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka waliba leeyahay 4 waaxood oo shal ah: waaxda wacyigelinta iyo barowga edbiyowga, waaxda maamulka iyo maaliyadda, waaxda howlgalka doorashooyinka iyo waaxda sharciyada. May kale guddiga leeyahay xafiiska diiwaangelinta xisbiyada. Guddiga Madaxa-banaan ee Doorashooyinka Qaranka way ka shaqeeyaan korangaada kalsoonida oo muwaadinka Soomaaliyeed ka qaba inuu dalka ka hirgeliyo. sanduuqaad aad u doonto dalaqsi warqad